dhashay dalka China ayaa islaantiisii maxkamad la koray maxaa yeelay waxa ay u dhashay ilmo aad iyo aad u foolxun wuxuu yiri anigu waan qurux badanahay islaantaydu way qurux badan tahay ha sheegto meesha ka keentay noolahan anigu ma dhalin kalsooni baa la isdheeri dheecaanka DNA-ga ayaa laga baaray bal in warkiisu sax yahay mise cunuga asaga dhalay borobalem dheer kadib islaantiisii waxay qiratay in ay qalin caaga ama isqurxin gashay hadda ka hor 8,000 oo Guinea sterling laga qaaday hooyadii adeer inaad versionkii hore ii sheegtid beeheed buu yiri adoo update aad noo imaanaysa markaasaad ilmo versionkii hore ahaa noo dhalaysa gabdha waxaa jira markii la yiraahdana ilmaha madaxgeed ka keentay adigu bil dhalata aad u egtahay yiraahda waa awowgii labaad oo xagga taagan alla u naxariiso odayga miskiin inantan maxay sameysay markii booliska ka fakatay Amy Sharper waa 18 jir ku nool magaalada Sydney ee dalka Australia booliska ayaa qabtay iyadoo loo haysto tuugnimo tuug faraha looga gubtay ahayd waliba nooca jeebsiibka adoo taagan laba kelmadood ku dhahaysa markay dhaqaaqdan lacagtaadina waa la dhaqaaqday mool dhan bay galaysaa iyadoo faramaran iyadoo buuxdana ka soo bixi kaamiraduhu xitaa ma qabtaan meel walba ay tagto waa inay faa'iido kala soo noqotaa nin bay soo ag fariisan xoogaa bay la hadlay markay kacdana maxay ii dhiibatay waa inaad sideeda u qurux badan tahay fees aakhritaankii la soo ogaaday laakiin ka carartay booliskii iyadoo maxkamadda loo sii wado booliskii sawir ay leedahay ayay Facebookooda soo dhigeen si qofkii arkaa inaan saa u eeg u soo sheego laakiin sawirkii Amy ma cajabin maxaa yeelay waxay soo dhigeen sawir iyadoo busto huwan dayacna ka muuqdo sawirkii ayay comment ka bixisay oo ay tiri billahi calaykum sawir iga bedela sumcad xumadana iga daayay oo waliba sawir kale ay qurux badan tahay u soo dirtay ayadoo la kan igu raadiyay ilmaade rayaalow suuqa ha iga xirine sawirkii ay soo dirtay ayaa ummadii oo idil ku faafay oo dadkii oo dhan ayaa si fiican u raadiyay ayagoo bal isla quruxda arka almuhim laba maalmood kadib la soo qabtay jacaylkii uu hayay waxa uu isu bedelay nacayb suu go'aansaday inuu ka argoosto Brandon Brevo nin American ah wuxuu ka shaqayn jiray mid kamid ah airportyada ku yaala dalkaas waxa ay isbarteen qoftan lagu magacaabo Jennifer 3 sano markii ay wada socdeen ayay xaaladii isbedeshay Jenniferna waxay go'aansatay inay kala tagaan laakiin Brandon waa diiday wuxuu yiri wali waa ku jeclaa anigu ayaduna waxay tiri war naga tag jacayl leeyna markaasuu Brandon waxa uu ku fakaray sidii uu uga argoosan lahaa gaari qadiimi oo uu lahaa intuu magaciisa ka bedelay ka dhigay in Jennifer ay leedahay kadibna waxa uu dhigay baakinka khaaska ah ee airportka uu ka shaqeeyo mid dadka sare ma aha ay sicid kala gawaarida dhigan 2 sano ayuu gaarigi baakinka yaalay lacagtana deyn ahaan ayaa loogu qorayay Jennifer booliska waagi dambe Jennifer ayay u yeereen oo waxa lagu yiri gaarigana meesha ka qaado deyntana bixi marka lacagta lagu leeyahay waxay gaartay $105,000 markii Jennifer la qabtay waxay soo wacday Brandon ayadoo bariyaysa inuu caawiyo asaguna gees ka qosti jiray oo aad ugu faraxsanaa waxa qabsaday cadow markii la maxkamadeeyay lacagtu waxa looga dhigay 4,600 intii kale waa laga cafiyay hadhow baan maqli doona dad ku haya dumarka iyo ragga dumarka shaydaansan waxay kuula eg tahay qacda hore naag caadi ah laakiin dheeldheel laguma helo dhaqamada waqooyiga Tanzania ayaa waxa kamid ah in hadii aad rabtid inaad gabar guursato ay ka horeyso inaad libaax la soo dagaasho oo madaxiisa keento meher ahaan waa hadaad adoo nool soo noqotid hadii kalena fi sabiil jacayl inuu dhinta lagu hirgelin aaway wiilash ka cabanayay xogaaga lacagta waa la idinka deena bal madaxda waxa keena qawaaniinta ugu yaabka badan adduunka waxa kamid ah dalka Singapore waxa ka mamnuuc ah inaad soo iibsatid iibisid ruugtid xanjada gabigeedaba waxaana loo mamnuucay in shacabku xanjada intay ruugaan ay jidadka ku daadiyaan hadhowna gurideeda iyo dhulka fujinteeda dawladda shaqo badan baa ka qabsata jasiiradda Gabri ee dalka Talyaaniga waxa ka mamnuuc ah in dacaska aad xiratid maxaa yeelay codkiisa dadka dhibsanaya Allah xurriyadaha naga qaad hadii aad Nigeria u safrisid waxa mamnuuc ah in aad boorsada ku qaadatid saabuun iyo cabitaanka aashitada leh dalka Boortaqiiska waxa ka mamnuuc ah in badda gudaheeda aad ku saxarootid waxa uu sheegayna garan mayna qof biyo ku jira wuxuu qabanayo maxay kula tahay madaxdaas hadii Soomaaliya la keenay inay ka mamnuuc lahaayeen dalkan maxay sameeyaan dumarka iyo ragga isqaba sanad walba dalkan Finland gaar ahaan magaalo lagu magacaabo Sonkajär sanad walba waxa ka dhaca tartan la yiraahdo tartanka xambaarida xaaskaaga nin walbana gali kara xitaa haduusan lahayn reer walaashii ama gabar u doonan xambaari kara si marmarsiiba loo waayo iyo kama qayb gali karaan dumarka la xambaarayay waa inaysan 49 kiilo ka yarayn 17 jirna ka weyn tahay maalinta tartanka nimanku waxay garbahooda ku qaadayaan dumarka ayagoo la ordayay in dhan hal saac oo la sii maraya jidad raf ah iyo kuwa caadiyaba dhagax korkood iyo buuro 254 mitir dherer leeg ilo biyood alwaax waxaas oo idil ka sii gudbayaan guulaysaha koobaad iyo kan labaad iyo kan saddexaadba waxay ku guulaysanayaan lacag intaa waxa ku dheer in islaantiisa ama walaashiis ku faanayaan oo loo aqoonsanayo geesi cagsiga kuwa laga badiyay wiil Soomaaliyada nooga qayb gala tartankaas doonayna ama iska daa Soomaaliya ka hirgelinayna insha Allah sanada soo socota isa soo diyaariyo isnafaqeeyo ragow ninkan waxa uu sameeyay suuli mar walba isticmaasho lacag aad ka helayso ninkan injineerka iyo designerka isugu jira laguna magacaabo Chu Chai-yun kana soo jeeda Kuuriyada Koonfureed waligii waxa uu ka fikiri jiray sida looga faa'iideysan lahaa saxarada dadka
caqli baa saaran ilaa uu sameeyey fadhi suuli ama tuunjiga dheer oo lagu magacaabo BV. fadhigan waxa uu qaadayaa saxaradaada wuxuuna geynayaa taangi weyn xaggaas oo ay ku taal xarunta u bedelaysa gaas la yiraahdo methane. gaaskaasna waxa uu ka mid yahay ilaha ugu waaweyn ee tamarta. waxa uuna ka hirgeliyey fikradaas mid ka mid ah iskuulada ku yaala dalkaas. ardaydii dhiganaysay iskuulkaas waxay awoodeen inay iskuulka tamarta korontada hay uga dhigaan ayagoo isticmaalaya dheemanka ka imanaya si aysan ardaydu uga baqin ama loogu dhiirigeliyana. mar walba operation gasho oo saxarooto waxa aad helaysaa lacag digital ah. mar walba operationkaagu batana lacagtaadu way badan. lacagtaasna waxaad wax kaga iibsan kartaa dukaamada iskuulka si caadi ah. shaah, biyo, cunto iyo buugaagba adoo isticmaalaya koodhka suuliga ku yaal. markaad operationka saa u bilowda ayaad koodhka gelinaysaa moobilkaaga. lacagtuna soo daadan qashin saar macal faa'iido. xitaa saaxiibkaabaad ka daysan kartaa saxaradiisa. marka anigu hadda waxaan idin leeyahay boosaneeradiina ilaalsada. farajkii baa soo dhawey. nigan muxuu soo iktishaafay? Antonio C waa 99 jir Talyaani ah. islaantiisana la yiraahdo Rosa C oo 96 jir ay tahay. 2010 ayuu Antonio maxkamadda geystay dalab furiin ah si uu isaga furo Rosa. hadda waa 99 jir. maxaa yeelay waxa uu soo helay dhambaalo jacayl oo 1940kii Rosa ay nin isu qori jireen oo 77 sano ka hor ayay khiyaantay. markaasuu u yimi sidii nin masayrsan oo yiri naaya maana 77 sano ka hor ay khiyaami jirtay. haa bay tiri laakiin waxaas waaye hore ahayd. hadda indhahaygu wax kale ma arkaan. adiga maahe. suu yiri indhaha kugu haray maxay yihiin macna? naa waad furantaha. 70 sano kadib odaygii sharaf ku dhimaysteen. waxay ila tahay duqdiina xaflad bay qabsatay oo ah wixii ku soo maray ka mayro saabuun iyo biyo la'aan. Brandon Fosmar waxa ay isbarteen inan la yiraahdo Crystal. xoogaa yar markii ay wada socdeen ayuu ku casumay in ay shaneemo isu raacaan. markii ay shaneemadii tageen oo in yar fadhiyeen ayay Crystal bilowday inay moobilkeeda isaga mashquusho. markaasuu ku yiri naa moobilka dhigo filimka wax ka daawo lacag baa nooga baxday. dhowr jeer markii uu ku soo celceliyay ayay ku tiri niyow filimku ima cajibin horta kawdhe adiguna imaada cajibin iga daa marka buuqa oo ka dhaqaaqdayba. markaasuu asaguna bilaabay in uu maalin walba soo waco asagoo ka raba lacagtii tigidhka shaneemada uu ugu soo iibiyey oo $17 ahayd. waxay iska dhaga tirtaba oo istiraahdo waa wax waalan oo kugu ciyaaraya. waxay ku war heshay inuu kiiskii maxkamadda la tegay. waaba ka serious ninkan. aakhritaankii $17 way bixisay. bilaash bay moodo meeshay ka soo go'day baysan ogeyn iyo sida uu ugu quuray.